dadka isjecel kala geeyo isku dira waa shaqadii sixirka waa shaqadii shaydaanka dadka isjecel in la isnacbaysiiyo ka shaqeeyo dadka aan dambiga lahayna xumaan u raadiya oo mashaqo u raadiya ama mid isagu uu galay buu dusha ka saari ama waxyaalo kale intuu soo raadiyo been abuurto ama dad ka soo qaado dusha ka saari dadkaasi waa ummadda kuwa ugu shar badan buu nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu alayhi shiraaru ummati ummadayda shiraartooda sharwadayaashooda waa kuwaas nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu alayhi insa dhiig daatay war la gudbiyay darteed insa guriyo ku burburay war la gudbiyay darteed insa ummadii isugu dhacday war la gudbiyay daraadeed waxaad ku talagalaysaa kelimada ka soo baxday qiyaasta fasaadka ka dhashay ayaa dambigeedii xisaabteeda leedahay ay kula fududahay adiga markaad sheegayso laakiin waxa ka dhashay dhiigga ku daatay ummadda isku nacday burburka ka dhashay masaa'ibta ka dhalatay adiga xambaarsanaya maxaa yeelay musabbibat aadam labadii wiil uu dhalay isdilay sida quraanku sheegay kii gacanka lahaa ee dilka sameeyay ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso ruux kasto xaq darro lagu dilo dambigiisa ka dilka sameeyay dambigiisa in la eg buu isagu dhalay maxaa yeelay kaana awwala man sanna al-qatla dilka ibni aadamku inuu isdilo ninkii ugu horeeyay jideeyay buu jidka wixii mar oo dhan dunuubtooda dhan buu urursan ayaguna way qaadanayaan ninkii xumaan iyo fasaad ka shaqeeyay fasaadkaas wixii ka sii dhashay isaga iskale saas daraaddeed baa nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi buu aad u adkayn oo arrinta iyada ah bedelkii dadka aad warxu u kala qaadi lahayd isu soo jiid oo xataa waxaa la ogolaaday been isticmaal beentu waa xaaraam waa dunuubta waaweyn bay ka mid laakiin markaad dadka doonayso inaad isu soo jiidood isjeclaysiiso aad nacaybka dhexdooda abbi'iso been inaad u kala gudbiso si aad u heshiisiiso waa la ogolaaday ilaa meesha la gaarsiiyo u fiirso sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaana in lagu baraarugo wararkan faraha badan ee sida fudud loo naqlinayo waxaa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima ruux baa hal kelimada ku hadlay kelimada markuu ka hadlay ka soo baxay muusan u fiirsanin kama fiirsanin isma lahayn meesha ay gaadhay bay gaadhi doontaa halka kelimo ee uusan ka fiirsanin oo dhici karta inay kaftan uga soo baxday ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala caladiisa ayuu ku helayaa ilaa qiyaam saaca riwaayo kale naarta ayuu kelimadaas sababteed ku hoobanaya 7 sano ayuu naarta hoos ugu sii hoobanaya halkaa kelimo darteed hal kelimo oo kula cuslayn odan ka baaraan degin oo si fudud kaaga soo baxday way dhici kartaa inaad ku kaftantay waa waxa dhici karaysa 7 sano inaad naarta jahannam hoos u gasho arab kalima sahlana ninka isku siidayayna oo faraha ka qaadeen iska qabanin oo ilaalinina halaagiisu waa xatmi